xukuumadda somaliland ayaa maanta warqad cabasha waxay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa ee warbaahinta BBC-da ee Ingiriiska fadhigeedu yahay. warqadaas oo ay kaga cabanayaan dhexdhexaadnimo la'aan ay ku eedeeyeen laanta afka Soomaaliga ee idaacada BBC. waxaana wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo uu warqad u diray madaxda ugu sarreysa ee BBC-da ee ku kala sugan London iyo Nairobi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Somaliland ee loo yaqaan Solna. wasiirka warfaafintu waxa uu muujiyay cabasho ay Somaliland ka qabto barnaamijyada doodaha ah ee ku saabsan qadiyadaha la xiriira Somaliland iyo Soomaaliya oo uu sheegay in laanta afka Soomaaliga ee BBC inaanay chance isku mid ah siinin siyaasiyiinta Somaliland iyo kuwa Soomaaliya ee doodaha ka qayb galaya. sidoo kale warkan ay baahisay wakaaladda wararka ee Somaliland ee Solna waxa wasiirku ku sheegay in Somaliland aanay ka fursan doonin inay qaado tallaabooyin ku haboon haddii aanay madaxda ugu sarreysa ee BBC-du aanay ka jawaabin cabashada ay qabto Somaliland.